kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkii waayaha nolosha oo idin socodsiin doona anigoo Muxtaar Ismaaciil Cali ah qodobada aanu barnaamijka waayaha nolosha ku soo qaadan doonana waxa kamid ah waa shaaha dhaka jabiye oo shaah la wareega ah kaasi oo lagu iibiyo xaafadaha kala duwan ee magaalada Hargeysa waxa la abuuray wiil dhalinyaro ah oo ka yimid dalka Mareykanka markaan arkay suuqeena sida uu buuxdo dad fara badan ee joogan iyo shaahna sida habeenii maalin loo cabayo fikradna igu soo dhacday alxamdulillah in internetka aad wax ka iibsato laguna keeno gurigaaga waa hal abuur uu keenay mid kamid ah dhalinyarada ku nool magaalada Hargeysa oo wax ka bartay mid kamid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Hargeysa deetana markii jaamacadda ay dhamaatay halkii aan kaga fikiri lahaa intaan maalin walba CV qaato oday xaafadii aan la kulano kolba shaqaan raadino in aan anigu bal ku fikiro cilmigan aan soo baranay ama qaabka ugu fudud looga faa'iideyn karo haddaba sidee u arkaan bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa adeegyadan ay u keeneen wiilasha dhalinyarada ah marka hore waxaan ku doonan jiray meeshooda laakiin hadda way noo fududeeyaan guriyahayga dhexdooda ay noogu keenaan ma sha Allah waqtiyada hore horta meelahaas meeradan shaah ka soo qaadi jiro koobkii noo diiday jireeba ya laakiin imika wadada iska qabanaysa habeenkii shaahi ku hor wada caqabado nooceeya ay kala kulmaan dhalinyaradan hal abuurka cusub keentay bulshada dhexdeeda waxa dhacaysa marmarka qaarkood qofkii aad alaabta u geysay ibaa laftiisa inuu ama lambarkiisa iska xirmo ama telefoonkiiba dabka ka dhaco aad maanta reer sida caadinaataan marka way iska dhibaato badan tahay waxa dhici karta marmarka qaarkood qofkiiba inuu biis yar noqdo hore kugu soo bixi waayo halkii aad muddo taagnaato maadaama adigna meeshii garanay dadka inta badan ma garanayaan waxna wuxuu yahay waxa ku jira inuu shaahiyay dad baa jira waxa ku oranayaan wuxuu ma sunba mid baa jira suuqa Hargeysa dhex socdo buufiyo sunta guryaha ka bay garanayaan wax xambaara soo marka kan ma ka arkaan kuwa fara badan baa yiraahdo wal inamay ka beed sunta aad wadatid intayna barnaamijka faahfaahsan u gulin waxa fududeysay macadka xifdiga quraanka ee xaamil quraan kaasi oo hab toos ah online kugu baraya xifdiga quraanka adigoo ku sugan dacallada dunida فاحفظ كتاب الله تحفظ بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها حقاقيسا أرددي سو حاضرتي حامل القرآن أونلاين ما أنت واقفان haddaad xaawilayso xifdiga quraanka xarakaadka tajwiidka xaasha culumta ahkaamta cilmiga xeerinaysa ku soo biir xaamil quraan online si aad u noqoto xaafid quraan hal weeye barashada quraanka intaad ku xijoobi leed ha ku noqdo xijoobire xaggayga iyo xaggaagaba ala kulli xaal la macmil xaamil quraan online barayaal xufaada xambaarsan kitaabka Allah xiskooda ku xardhan quraanka xaasha fahansiinta xifdiga ardaydooda xaqiiq la isku tilmaamay ayaa xaadir ku ah xaamil quraan online xisaab ma lahan tiro inta xidhmo dulaab ka xoreysa jahliga xaamil quraan online aan ku tilmaamo xarunteeda koowaad waxay ku taallaa Hargeysa xarunteeda labaad waxay ku taallaa Muqdisho wixii faahfaahin intaasi dheer wax taleefanada shaashada hortaada ka muuqda ballanteenu waa xaamil quraan online mar kale kulanti wacan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii oo faahfaahsan Xuseen Ibraahim Guuleed waa wiil dhalinyaro oo ka yimid dalka Mareykanka waxa uu abuuray in uu shaaha ku iibiyo suuqyada kala duwan ee magaalada Hargeysa oo ku sida dhabarkiisa kaasi oo kala geynaya xaafadaha kala duwan kadibna waxa uu sameystay inuu ballaariyo fikirkii oo uu qoro dhalinyaro gaaraysa 17 kuwaas oo ku kala iibiya xaafadaha kala duwan ee magaalada Hargeysa maraan ku booqanay xarunta uu ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaan waxaana dhaxmartay sheekadan markii hore adiga kaliya bilaabay imika say waa ka duway balna warbixin naga sii hadda alxamdulillah waa sida u jeed shaqaale way badbaadayeen daama badanna way gaaraan alxamdulillah soo marka insha Allah waxaan doonaynaa inaan meel kale inaan gaarsiino insha Allah shaqada fikirkan sidoo kugu yimid markii hore Soomaaliland كود waxaan arkeen shaaha si aad loo iibsado magaalada Hargeysa Soomaaliba hadaan nahay
soo marka waxaan siri bal shaahan kafeeyaashan la furaya dadka fadhiisanayaan taa mid kale ka keeno ka duwan ma garatay soo marka waxaan siri qasab ma macaamiishin adigu ku yimaada aad u tagi karto lugtaada ku gaarsiin kara shaah ma garatay soo marka sidaa bay fikrad iga timaadeen in falaasa oo dabarka lagu qaado oo dadka iyagu fadhiga lagu geeyo shaah magacan dhakajabi siduu ku yimid isagu dhakajabiye markan koo bilaabay aan tijaaribaya dadka u yar dhadhaminayay baa mid xagga oday xagga fadhiyo qaylaya baa markan u dhadhamay uu yiri waniyo bahalkan waa dhakajabiye aniguna waxaan ku yiri dhakajabiyena maxay ahayd macnaheed dhakajabiyena maxay ahayd macnaheed baan ku yiri wuxuu yiri dhakajabiye waa qoobka miiga koobka shaaha marka subaxda la cabo indhaha kala dilaacay ma garato marka waxaan raano daydaya af ingiriis inaan u bixiyo waan service baan u dhakajabiyena ma bixinayaa magaca waan ka helay xuseen dadku waxay isweydiinayaan markii hore maraykankaad ka timid sidaan warbixinta ku hayno ma dabadaad ku qaban jirtay shaqadan mise markii aad halkan timid uma ay kugu dhalatay xagga markaan imi igu dhalatay markaan arkay suuqeena siduu u buuxo dad fara badan ay joogaan iyo shaahna sida habeenii maalin loo cabeeyo soo marka xagga markaan imi anigu laakiin waxaan doonayay inaan markaan xagga imaado wax ganacsi inaan ka furmo garatay soo marka in wax ganacsi waan doonayay inaan sameeyo laakiin ma ogeyn wax nooc noqon doono laakiin markaan imi magaalada baan fikradna igu soo dhacday alxamdulilah markii aad maraykan joogtay markaad maraykan joogtay maxaad qaban jirtay kambani walaashiis kale oo caymiska oo maraykanka ka samayso waan ka shaqayn jiraan manager tirada shaqaale imika halkan ka shaqeysa ka howlgasha xaruntaadan waa imisa hadda waa 17 oo kuwa la wareegiyo kuwa sameeyay wixii ma imanka kuwa kale ugu daran adigu ilaas 20 gaarayaan suuqa imisa u baxaa tirada dadka dhalinyarada suuqa u baxday shaah la wareegay kuwa qaada baa 17 ma isleedahay gelin hore gelin dambe markaa laba shift bay kala laba shift bay kala galaan gelin hore fikirkan waa fikir ku cusub waa bulshada wax caqabado intii aad ku guda jirteen idin la soo dirsamay jiray way jiraan taban business walba markaad ka bilaabayso wax un baad la kulmaysaa waxa kamid ah markan ka bilaabay dadka inta badan ma garanayaan waxna wuxuu yahay waxa ku jira inuu shaahiyay dad baa jira waxa ku oranayaan wuxuma sunba mid baa jira suuqa Hargeysa dhex socdo oo buufiyo sunta guryaha ka unbay garanayaan wax xambaara soo marka kan marka arkaan kuwa fara badan baa yiraahdo wal inamahayga ka beed sunta aad wadatid soo marka waa inaad in yaroo qancin bay u baahan tahay in yaroo education inaad bulshada aad siisid aad u sheegto waxan waa shaah weeye oo farsamo cusub aan sameynay laakiin alxamdulillah si fiican bay bilaabeen hadda inuu soo qabsadaan suuqa Hargeysa wala soo qabsanayaan marka caqabado soo yaraanayaan alxamdulillah imika Hargeysa quraataad mashruucan ka socda fikirkan aad ka hirgelisay ma ku tala jirteen gobolada kale Soomaaliland iyo waliba deegaanada ay Soomaalidu degto aad gaarsiisaan insha Allah qasab anigu ma doonayna Hargeysa inaan ku ekaan waxaan doonayna insha Allah Muqdisho meelaha kale oo dhan inaan geeyno ma garad Boosaaso iyo Kismaayo iyo Boorame iyo meel walba shaah laga cabo Soomaalida oo shaah waan jecelnahay soo marka meel walba Soomaali ay joogaan shaah cabayaan dhakajabin insha Allah wuxuu noqonayaa shaah magaalada shaah wadanka haddana way wareegaan shaah dhabarka ku xambaaraan in yaro xaysiis camal bay noo tahay intaa laakiin insha Allah future-ka waxaan doonaynaa meherado inaan furno meel dadka iska fadhiisan karaan iyo waxa mawduuc fara badan waan haynaa insha Allah sameyn doona hadda kuma sheegi karno of course laakiin insha Allah maalinta markaan heer fiican markaan gaarno aan si balaarin doona si fiican waxaanu la kulanay dhalinyarada iyagu iibiya shaaha dhakajabiye oo iyagu xilligaasi u baxayay inay shaaha geeyaan suuqyada kala duwan iyo waliba xaafadaha magaalada Hargeysa waxaanu ka wareysanay bal xaafadaha iyo goobaha ay geynayaan shaahyadan iyo siday dadku uga iibsadaan imika waxaanu ku sugannahay xarunta dhakajabiye waxa imika la kala diray shaqaalihii waxay u baxayaan goobihii loo cayimay oo xaafadaha kala duwan iyo waliba degmooyinka magaalada Hargeysa ana ka bilaabo magacaaga iyo halka u baxayso السلام عليكم waxaan baxay idaacada
waxaan sida ahaantii ku jira shaahu qiyaas ma leeyahay inta koob ku jirta haa waa shan ka koob qof kasta marka intaas sida maya booyo tooyma sida inta kale gaari saaran tahay ima dhuma qaadi 9 kamid gaadho haamo hodhamaan leeyahay ma suu qiyaas baa haa waa isku qiyaas gibi waa isku qiyaas adigana magacaaga aniga waxa la bari jaamac waxaan u baxay tijigeer tagiya haa aniga magacayga waa Cabdimiin Umar waxaan u baxayaa tayuurada dhakhtarka weyn intaas soo qadhay adigana wala magacaaga magacaygu waa Sidiiq Faax Xasan waxaan u baxayaa inta idaacada shaax masdaan u buumasda 30 koob buna السلام عليكم وهذه السلامة بهذا يونيفرسال تي في أنا magacaygu waxa weeyaan Cabdi Saacid hadda waxaan u baxayaa magaalada Hargeysa daanteeda boqoliyo ka toka waxaan sidaa waa buumay qaar kamid ah bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa oo iyagu isticmaalayay xilligaasi aanu la kulanay shaahada ka jabiye sidee u arkaan shaahan oo ah mid ku cusub iibintiisu gudaha magaalada Hargeysa muxuu kaga duwan yahay shaayadii hore ee lagu iibin jiray magaalada Hargeysa waa tan sheekadina dhex martay dadkii aanu la kulanay عيقو محمد أو جامعة قرة كنا مقالة هركسة يرتورنا أنت يرتشاهن يرتشاه آد وشقينيه بختيده ورورتا ميلهاس ميردار شاه كسقاط شرو كوب كيبنو ديدي وجريبه يا لكن إما كوضدا بس كقبنا سابين كيو شاي كهر وضع يا dadka marka waxaan ku boorinaya markasta ale dadkeenan shaqooyinka magaalada ku soo kordhinaya aad loo ixtiraamo shaqooyinkana aad loogu ilaaliyo baan leeyahay marka waxaan tahay meherad baad haysataa mise waxa tahay dadka suuqa caadiga ah meey walaal meherad baan haysanaa waa meherad naga dambeysay marka maalin walba ma isticmaashaa maalin walba waan isticmaalaa ya 24 hours wala waan isticmaalaa aroortii sida badan aroortii ugu badnaatay iyo galabtii ya labadoon ka qaata walaal ya markaas dadkana waxa leeyahay mataqaana inta koobkii laga reysay meelaha isnaay kolba islaali ku seereen si laad koobka yimeedaysay laga reysay baan leeyahay marka hala qaato shaahinaas bal dhadhanka ka war muxuu kaga duwan shaayada kale mid kala duwan yahay arkayo aad buu macay ya aad buu ga fiicay wallahi magacaygu waxa weeyaan Mukhtaar Aadan Cigal waxaan joogaa xaafadda Jigjiga yar baqaarkan oo taagan waa Shaafici Sor Jigjiga yar waxaad iibsanaysaa shaaha laga jabiyo wareega bal ka waran shaahan shaayada kale ma ka duwan yahay wallahi horta waa markii saddexaad baan maanayaa cabba shaahan waa shaah aad wanaagsan isagoo bunana waan cabay aad buu fiican yahay okay horta wuxuu kaga fiican yahay isaga meel kastoo joogto uu kugu imanaya meel kastoo joogto waa lagu keenayaa shaahiyo shaahin baa ku soo galaya dadayshun baa wanasatay بس كيف يعني ها الحمد لله والله dadka maartay meelaha koonayaasha joogo kale aad iyo aad ugu baahin dadka koonayaasha jooga meel kasta haatay aad iyo aad ugu baahin waana de fursad loo baahnaayo wadanka ka dhinayd ninka fikradda keenana aad iyo aad buu mahadsan yahay xubinta labaad ee barnaamijkeena waayaha nolosha waxaynu ku soo qaadan doonaa internetka aanu aad u isticmaalno Soomaali haddaynu nahay oo lagu kala iibsanayo alaabo kala duwan macmiil online waa mid kamid ah shirkadaha wax ku iibiya internetka waxa halabuuray Khalid Cabdi Cismaan oo wax ku soo bartay mid kamid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Hargeysa
waxaanu ka wareysanay sida uu fikirku ugu dhashay iyo welibana caqabadaha ka hor yimid intii uu waday ganacsigaasi internetka ah. waxaa la yidhahdaa Khalid Cabdi Ismaan macaamiil online market waxa weeyaan website e-commerce wax lagu iibsado oo dadku ay wax ka iibsan karaan sidoo kalena ay wax ku dhex iibin karaan. marka guud ahaan macluumaadkiisa kooban waa meel online ah oo dadku ay si online ah wax ugu iibsan karaan sidoo kale alaabo ay haystaana ay ku dhex iibin karaan. marka waa suuqyadii suuq magaalada ka jiray oo kale oo teknolojiyada isticmaalayo. fikirkani qaab noocee kugu dhashay ma meel baad ka aragtay ma dawladda markii hore ku soo aragto ma halkan la timid bal bulshada faahfaahinta fikirkan marka hore wuxuu ugu dhashay markii aan ardayga ahaa waxaan dhigan jiray fakalka IT-ga loo yaqaano jaamacadda College University waan ka soo baxay deetana markii jaamacadda ay dhamaatay halkii aan kaga fikiri lahaa intaan maalin walba CV qaato oday xaafadii aan la kulano kolba shaqaan raadino in aan anigu bal ku fikiro cilmigan aan soo baranay qaabka ugu dhow ama qaabka ugu fudud ee looga faa'iideyn karo bal in aan ku fikirno oo aan sameyn karno website shaqeynaya. marka hore iska adkaato oo caqabadaheega iyo dhibaatooyinka iska laha laakiin hadda alxamdulillah wuxuu noqday system hirgala oo aan rajaynayno inaan sii horumarino. waxaa jira fursado fara badan oo waddankeenu maadaama waddan soo koraya curdina uu yahay fursado badan oo bannaan baa jiro dadka dhalinyarta ama dadka waaweyn cidda doonto waa noqotay ka faa'iideyn karaan oo still iska bannaan oo malaha bulshaduna ay soo dhanayso ka yareen dhalaadahay. marka maadaama oo qof kastoo ganacsi bilaabo oo ku fikiro inuu meherad weyn furto deetana oo sida hawshiisa ku wado anigu niyo waxay leeyahay qurux badnaatay in maadaama jeclaan jiray in aan ganacsi waxaas aan sameeyo ama aan abaabulo waxaan isku day jiray mar walba bal sidee baad faa'iido ku sameyn kartaa. marka taas waxay ugu dhalisay inaan la nimaadno wax waddanka ku qariba ma oran karno anoo kaliya taa online wax ku iibina laakiin wax waddanka ku yaro dhif ku ah oo aan islaanay heer baad ka gaari kartaa. marka fursad bannaan awoodin bay ugu dhalisay inaan fikirkan ka faa'iideysano. maadaama aad internetka ku dhex iibinaysaan bulshadu waxay isweydiinaysaa qaab noocee internetka wax lagu dhex iibin karaa oo ay dadku wax uga iibsan karaan aadna aad wax ugu iibin kaasaba ka fududba markii hore caadiga loo iibsanayo. internetka wax ugu dhex iibin kartaa waxa jira aalado badan oo la isticmaalo sida social media ama website-yadii deetana website-kaaga baad soo gelinaysaa alaabtii ama products-ka aad iibinaysaa adigu website-kiina dad fara badan baa ayaa soo booqanaya maalintiiba oo arki kara. sidoo kale waxaad isticmaalaysaa social media Facebook iyo Instagram-ka iyo WhatsApp-ka isagana sidoo kale deetana bulsho fara badan maadaama ku xiran tahay adiga suuqaaga waa suuq daily maalin walba update karaysan oo every day la arki karo wixii adigu soo dhigtay. marka way ka kooban tahay oo xitaa way ka dhib yar tahay in qofku uu ka warhayo dukaan uu ku xiran yahay alaabta uu keeno waxa uu ka fudud inuu ka warhayo website uu ku xiran yahay alaabta uu keeno qaabku ku ogaan karo. qofku markuu internetka wax kaga iibsado oo internetka ka arko website-ka ka arko uu ka iibsado qaab noocee aad wada xidhiidha laba nooc baan wada xiriirnaa in qofku uu nidaamka online ka raaco. nidaamka online macnaheedu waxa weeyaan qofku isagoo gurigiisa iska jooga waa alaabtii soo dalbanaya lacagtiiba soo bixinaya payment-kii wixii looga wada baahnaa shuruudihiiba dhamaystiraya kadibna email baa noo soo dhacaya odhanaya qofka hebel wuxuu dalbaday alaabta noocaasa lacagteedii wixii oo dhan message-kii cadeynayay in uu dhammaystiray. marka uu soo dhaco qofka waxa loogu geeyaa address-ka qofkaas dalbaday amba aanu la xiriirno telefoon kala xiriirno ama address-kiisa ha noqdo meel caan ah oo la isla garanayo. mid waa ka noocaas midna waxa weeyaan qaabkii traditional-ka ah qofku intuu internet-ka ka soo arko wax ayuu meherada noogu yimaadaa oo xidhada alaabta noocaas ee aad soo xayeysiinaysaan baan u baahanahay deetana isla alaabtii buu markaa qaatay isagoo isla goobtii jooga oo check garaysanaya. qaabkaas markaa waa qaabkii traditional-ki iyo qaabka online-ka qaabka online-ka ee qofka aad gurigiisa u geenaysaa haddaynu eegno waxaa jirta magaalada Hargeysa ma laha streeto iyo meel guryo lambareys lagu garto guriga lambarka caynkaasan tagay ama wadada caynkaasan tagay you can sidee aad ku garataan qofkii guriga xaafado kale ka dalban aan meherad suuqa ku dalban sidaad ku garataan gurigiisii markuu dhaha halka xaafada caynkaasan jooga halkii mushkiladu ka taagan tahay waa halkaas. dadku isku wada mid maaha in badan dhalinyarta kamid iyagu waxay isticmaalaan Google Maps marka Hargeysa la eego wadooyinkeegu yari kala nidaamsan yihiin deetana qofku inta Google Map-ka eegaba wuxuu eegaa wadada ugu dhow ee horum arka marta magaceega wadadaas buu sheegaa wuxuu raahdaa wadada noocaas markaad maraysaan ila soo hadla
qofkaas waa qof update oo wax ka garanaya qaabkii loo isticmaali jiray Google Maps qofna waa qof qaabkii traditionalka ahaa ee dadku isku soo hagi jireen kula soo hadlayo inta telefonkiisa kaasoo garaaco ka oranaya xaafid hiblaaye marka timaado meesha noocaas ay soo wac deetana halka ugu dhow is leeyahay waad ugu tagi kartaa adiga laftaada ama qofku ka soo garan kara ayuu noo tilmaamo qofka noogu yimaado positionka kadibna markaas alaabta loo geeyo way adag tahay in qof magaalada Hargeysa aad alaab la doonato maadaama tiri way adag tahay in qofku ay ku sheegan lambar aan jirin calaamado caqabado noocee ay kala kulmaad isleedahay waxa dhacaysa marmarka qaarkood qofkii aad alaabta u geysay ibaa laftiisa inuu ama lambarkiisa iska xirmo ama telefonkiiba dabka ka dhaco aad maanta isla caadinaataan marka way iska dhibaato badan tahay waxa dhici karta marmarka qaarkood qofkiiba inuu biis yar noqdo hore kugu soo bixi waayo halka aad muddo taagnaato maadaama adigna meeshii garanay marka halkay dhibaatada ugu faraha badan hadda ka jirta waxa weeyaan nidaamkii delivery-ga iyo qaabka wadankeena uu sameeysan yahay ama magaalada ay u dhisan karaysan tahay sidii la isku waafajin lahaa mushkiladda ugu weyn ee oran kara hadda in online wax lagu iibiyo way haysataa waa taas mustaqbalka imika meheradu way kooban tahay mustaqbalka maxaas leedahay mise ku tala jirtaan inaad gobolada gaarsiisaan Soomaaliland iyo waliba deegaanada Soomaalidu degto waxaan ku guda jirnaa oo maskaxdeeda ka gooxaysa in meel kasta qof af Soomaaliga ku hadla uu joogo ha noqoto deegaanadiisa ama wadamada jaarka ha noqotee in adeegayga laga heli karo hadda sida Soomaaliland oo dhan guud ahaan Soomaaliya inteeda ugu faraha badan leh sidoo kale kalarka shanaad oo kale Djibouti oo kale alaabaha waan u dirnaa waan gaarsiinaa waxaan isticmaalnaa ama shirkadaha isgaarsiinta transportationada ama diyaaradaha aanu saarno aduu kolba sidii aanu isla leenahay waa macquul oo aad ku gaarsiin kartaan baan imikada ku gaarsiinaa laakiin hadda waxaan rajaynayaa inaan laamayo xarmo ku yeelano si customer trust kalsoonidii customer-kuna ay kor u sii qaadmato in qof kastaaba ka heli karo gobolka uu degan yahay xarun aan ku leenahay oo alaabtiisii in case ay tahay wax dhacaan oo cabashadiisa soo gaarsiisan karo waxyaabaha aan ku rajaynahay in mustaqbalka dhow insha Allah aan dadku waxay ka iibsadaan alaabaha internetka waxaana lacagta ugu diraan qaab elektarooniga waxaan lagu geeyaa dadka alaabta ay iibsadaan guryahooga dadku sidee u arkaan waa tan mid ka mid ah macmiil online oo aanu iyadana la kulannay oo aanu kala wareysanay arrintaasi wata alaabta aad ka dalbatay macmiil online market lagu maasanta sida fiican noola soo xiriiday oo marka naga guddoon walaalood mahadsantihiin ilaahay khayr badan ha idin siiyo sida noogu adeegasaan idanagu guryahayga dhex jooga noogu keenaysaan wixii aanu idinka dalbano ee fiican ee hufan alxamdulillah aad baan idinku mahadnaqaynaa way anigu customer hore ayaan ahaan jiray alaabo badan baan markii hore ka iibsaday markii hore waxaan ku doonan jiray meeshooda laakiin hadda way noo fududeeyaan guryahayga dhexdooda noogu keenaan maasha Allah aad baan ugu faraxsanahay inaan arko dhalinyaro yar oo soo korayso u bixi wadanka ah oo shaqaysanaysa oo dadkooda u adeegaya oo hooyooyinkooda iyo walaalahooda ugu dhex keenaya guryahooda dhexdiisa wixii hay ka dalbadaan ay u baahdaan walow haba yaraado waxaasi u keenaya alxamdulillah aad baan ugu faraxsanahay maasha Allah macmiil online aad baan ugu faraxsanahay sida fiican ay ugu adeegayso bulshadeeda iyo dadkeega markaad la xiriirisay qaab nooceed u la xiriiray anigu markii hore waxaan ka arkay Facebook-ga kadibna waan la hadlay oo telefoonkooga ku qornay waan la hadlay deedna mobile baan ka iibsaday oo markii hore ugu tagay meesha deedna markii hore waxaan u tagay goobta ay ku leeyihiin ay meheradooda ku taala ayaan ugu tagay haddana alaabtan aan ka dalbaday alaabtina wadigan arkaya imika igu keenin gurigeyga dhexdiisa barnaamijkan waayaha nolosha waxaa fududeeyay maxadka xaamilul quraan oo qaab online kugu baraya quraanka kariimka adigoo ku sugan dacalada dunida فاحفظ كتاب الله تحفظ بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم
والشمس وضحاها xagaagan xagaagiisa ardaydii soo xaadirtay xaamil qur'aan online maanta waa hufaan haddaad xaawilayso xifdiga quraanka xarakaadka tajwiidka xaasha culumta ahkaamta cilmiga xeerinaysa ku soo biir xaamil qur'aan online si aad u noqoto xaafid qur'aan hal weeye barashada quraanka intaad ku xijoobi leed ha ku noqdo xijoobile xaggayga iyo xaggaagaba ala kulli xaal la macmil xaamil qur'aan online barayaal xufaada xambaarsan kitaabka alle xiskooda ku xardhan quraanka xaasha fahansiinta xifdiga ardaydooda xaqiiq la isku tilmaamay ayaa xaadir ku ah xaamil qur'aan online xisaab ma lahan tiro inta xidhmo dulaab ka xorraysa jahliga xaamil qur'aan online aan ku tilmaamo xarunteeda koowaad waxay ku taallaa hargeysa xarunteeda labaad waxay ku taallaa muqdisho wixii faahfaahin intaasi dheer wax taleefanada shaashada hortaada ka muuqda ballanteenu waa xaamil qur'aan online daawadayaal barnaamijkii waayaha nolosha toddobaadkan intaasaynu kusoo gabagabayn doonaa tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale ku kulmi doonno waxa bahda Universal TV magaalada Hargeysa oo isku duuban oo idinku dhaafaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh